siyaasi Cabdilqaadir Cali Obsiyo siyaasi madax bannaan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay dastuurka la furo si loo helo xubno isku sharaxa madaxweynayaal oo madax bannaan waa sidoo siyaasigana hadalkiisa u dhigay siyaasigan ayaa sheegay inuu hankiisa iyo hamigiisa siyaasadeed ay ku jirtay inuu mar u noqdo siyaasi madax bannaan oo Soomaaliland ka noqdo madaxweyne isagoo siyaasigan faahfaahinaya arrimahanina wuxuu yiri markaan waxaan ku boorinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha golayaasha baarlamaanka shacabka dhammaan in laga wada hawl galo sidii loo furi lahaa dastuurka Soomaaliland sidii aynu heli lahayn qofkii munaasib ku ahaa meesha waxa weeyaan in la furo dastuurka Soomaaliland si loo helo musharax madax bannaan oo u tartama jagada madaxweynaha runtii waa waqti ku haboon in maanta la furo musharax madax bannaan in la furo dastuurka lana helo musharax madax bannaan oo tartama jagada madaxweynaha waayo maanta waxaanu arkaynaa xaaladda waddankeena uu marayo halka uu marayo marxaladda uu taagan yahay wixii uu soo maray asxaabtan qaranka ee meesha maanta joogtaa runtii dadku aad bay uga niyad jabsan yihiin iyo xaaladda ama marxaladda uu waddanku marayo dadkeen moral jab weyn baa haya iminka diiwaangelintii oo kale ama kaarkii codaynta doorashada waxaad marka dadka wareysatid ay oranayaan qof walba oranaya yaan doortaa kuwii hore waan arkay kuwan iminka taaganna waan arkayaa oo kuwii hore weligood bayna soo hor joogay yaan doortaan u qaataa kaarka waa wada ula qaata male runtii waxaan leeyahay maanta waxaynu u baahannahay qof dhalinyaro ah oo siyaasaddiisa iyo qalbigiisa iyo himiladiisa ka run sheegaya siyaasi Cabdilqaadir Cali Obsiyo ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto inuu noqdo siyaasi madax bannaan ama dastuurka la furo waxyaabaha uu dadka u soo bandhigi doono siyaasigan oo mar kale ka hadlaya ayaa yiri waxa kamid ah barnaamijkayga waxa la yiraahdo 7 mucjisaad waa 7 dhacdo adduunka madaxweyne soo maray aanu hore u qabanin baanu qaban doonaa insha Allah ta'ala haddaan laba kamid ah idinka taabato waxa kamid ah ina noqon doono madaxweynaha ugu horeeyay ee bilaa mushahar ku shaqeeya mushaharku far badan yahay koob bigaysa aan ka cabin habeen madawan ilaahay ballan kula galay inaan koob bigaysa ka cabin hadii ilaahay xilka noo dhiibo waa qodobka koowaad ee mucjisooyinka kamid ah waxa kamid ah bini aadamku wuxuu leeyahay waa waqtigu waa 24 saacadood 24 saacadood qofka ugu badan wuxuu shaqeeyaa 8 saacadood buu shaqeeyaa ama madaxweynaha noqdo ama caamil ha noqdo ama mid loo shaqeynaya ha noqdo annaga waqtiga barnaamijkayga waxa kamid ah inaanu shaqeyn doono 14 saacadood waanu ballan ku qaadnay ilaahay subhanahu wa ta'ala annaga aan ka rabin magac ka rabin masab ka rabin maal ka rabin qabiil ka rabin binaadamku intaas oo orda wax kale uma ordo wuxuu cararaawa inuu magac helo sumcad inuu maal helo iyo inuu helo mansab iyo inuu helo qabyaalad iyo wuxuu maartay dadkiisa ku xooleeyo ama isagoo isku xooleeyo magac ilaahay baa magac waxa noo bixiyay aabahay uma baahna anigu maalna intaan haysta igu filan alxamdulillaah rabbil caalamiin oo nin ganacsada baan ma sabna iga maaha waxaan igu kalifayaa inaan maanta marka uu ololeeyo in dastuurka la furo ama aanu u noqdo musharaxa madaxweynaha ma sabtooniga maaha laakiin waxa weeyaan kaliya shidee waa fikir iyo qiiro wax qabad oo aan xambaarsanahay iguna kalifay maanta aan isleeyahay maanta malaagu daloolooyinka fara badan ee ilaa 1960 kii soo daloolay baad buuxin karaysaa dabooli karaysaa aan isleeyahay weeyaan nin baa laga hayay xanuun bay shidaya wax kale ma hayaan war wax qabad baan hayna maanta annaga na shidaya wax kale nama shiday iyo baahiyihii oo maartay xadka ka baxay iyo waddankeeni oo qaniya iyo wax qabadkii oo aynu qaban karno ayaa maanta intaas ma anaga maanta na shidaysa waxaan leenahay waddankeenu wuxuu u baahan yahay waa horumar iyo cadaalad intaasaanu anagu haynaa haddii ilaaha awoodda lehna fahamsiiyo oo nagu guuleeyo waxaan leenahay waxaana dad badan baa jiro oo anigoo kale amaba iga khayr badan amaba iga aqoon badan oo iyaguna dibadda taagan waa iyaguna meel ay ka soo galaan xerooyinkan dadkan ay ooteen meel ay ka soo galaan la Ismaan Ahmed Ismaan telefishinka caalamiga Star